لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalada ku xiran xogta salafka waa in salaamaya salaan kadib. waa xalqadeennii labaad ee ku saabsanayd xuquuqu zawjayni, labada qof oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosha iskugu daray ee guriga wada joogo ee isqabo xuquuqday isku leeyihiin. xuquuqdaason walaalayaal hore usoo sheegnay inay u qaybsanto 3 qeybood. qeyb waa xuquuq la wada leeyahay, ninkina gooni ahaan looga rabo, haweenaydiina gooni ahaan looga rabo, oo labadooda ay wada wadaagaan. midna waxaan soo sheegnay inay tahay xuquuq uu ninka uu leeyahay oo haweenaydu uu ku leeyahay. midna waxa weeye mid uu xuquuq ay gabadha leedahay oo ninka ku leedahay. waxaan marka ku horumarnay xuquuqda uu ninka leeyahay oo gabadha uu ku leeyahay ayaan ku horumarnay. fadhigii koobaad ayaan ka soo qaadanay. maantana insha allahu tacaala waxaan qaadanaynaa fadhigii labaad. waxaana ka cudur daaranaynaa soo daahitaankii aan soo daahnay ee duruuf iyo wax lamid aan kusoo daahnay. waxaa dhexda noo maraysay oon dhowr qodob ka soo qaadanay xuquuqda uu ninka uu ku leeyahay haweenaydiisa, leena doonaya gabadha muslimadda aakhari hadduu masey u badbaado inay aad iyo aad u danayso oo xaqaa lagu leeyahay ay gudato. waxaa ka mid ah xuquuqda ninka uu ku leeyahay haweenaydiisa lagana doonaya gabadha inay ilaaliso: anlaa ta'dana liaxadin an yadkhula beytahu ilaa biidnihi. gurigaa ninka uu leeyahay ee asaga uu mas-uulka ka yahay inayna qof kale oo rag ah aysan u ogolaanin ilaa asaga inay idan kaga qaato ay fasax ka haysata mooyaane. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi xaqa aad gabdhaha ku leedihin waxaa ka mid ah in ayna firaashkiina iyo gogoshiina ayna ku istaajinin man takrahuuna, qof aad idinka nacaysaan. macnaheeda idinkiina waa inay qaataan oy guriga qof kalaa sidaa kusoo geliyaan wey, laakiin idinkoon fasax inka haysanin inay iska soo geliyaan, taa macnaha gabadha uma bannaano. waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa ta'danu almar'atu fii beyti zawjiha wa huwa shaahidun ilaa biidnihi. gabadha uma idmi karto, uma bannaano inay u idanto ninkeeda gurigiisa qof kalo ilaa wa huwa shaahidun, asagoo goobjoog oo xaadira, ilaa biidnihi, in markaa isaga uu fasaxa mooyaane. marka qodobkaas waa qodob muhiim ah. isku dhac badanna guryaha ka dhex rido oo ah in qofkii kastaba guriga loo fasaxo oy ragga marka guryaha iska soo galaan ajnabiga ah iyadoon markaan gabadhii aan waxweyn ka dhiganaynin, kadibna hadhow laysku dhaco ee xaalado ay ka yimaadaan. sida daraaddeed marka waxaa ka fiican marka horeba in idin la isweydiiyo oo ninkii oo ka warqabo ee ninka kale sidaa lagu keeno. waxaa ka mid ah xuquuqda ou ninka uu ku leeyahay haweenaydiis: anlaa tasuuma siyaama tadawucin wa zawjuha xaadirun ilaa biidnihi. inayna soon sunno ah ayna iska soomin oo ilaahay baan ugu dhowaanaya subxaana wa tacala ayna dhihin gabadho iyadoo ninkeeda uu xaadir yahay oo goobjoog yahay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi laa yaxilu limra'atin an tasuuma wa zawjuha xaadirun shaahidun ilaa biidnihi. haweeney uma bannaana inay iska soonto soon sunna laga wadaa iyadoo ninkeeda uu xaadir yahay oo goobjoog yahay, uma bannaano ilaa biidnihi, in markaa ay maxaa la yidhahaa ay isaga uu ogolaado oy kaga idin qaadata mooyaane. maxaa yeele xuquuqda uu ku leeyahay ayaa ka weyn soonkaas sunnada ah, marka waa inay ilaaliso wey. waxaa ka mid a walaalayaal xuquuqdu ninka ragga uu haweenaydu ku leeyahay: anlaa tunfiqa min maalihi ilaa biidnihi. maalka ninka uu leeyahay inayna waxba ka bixinin ilaa inuu asaga ay kaga idin qaadato mooyaane. idinkaas oo marka noqon karo laba midkood: in si toos ay u weydiiso, ama asagaba uu sheego, uu yidhaah macnaha waad bixin kartaa wixii gurigan yeello ee aan marka culays badan aan lahayn, waa bixin kartaa. ama ay asagaba uu sidaa ku yidha, ama iyadaba ay weydiiso kadibna uu sidaa uga jawaabo. mase ma ahe maxaa la yidhahaa in curfi ahaan iyo dhaqankiisa ay ka barato in wix yaryar haddii guriga markaa la bixiyo inaysan dhib lahayn. marka mar walbaba waxaa uun fiican in wax laysku ogyahay ee laga wada tashtay ee layska warqabo, hadha aan macnaha culays ka imaanaynin inay gabadha samayso ayaa la rabaa. nabigeena calayhi salatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi laa tunfiqu imra'atun shay-an min beyti zawjiha ilaa biidni zawjiha. haweenaydu ma bixinayso oo ma nafaqaynayso wax guriga alaabtiisa ama macnaha nafaqadiisa ama biilkiisa ama dhaqaalihii ninka uu lahay ka mid ah
ilaa in ninkeeda ay markaa kaga idan qaadato mooyaane. marka mar walbaba idanka iyo wada tashiga waa muhiim jiddan weeyaan. waa si aana culeys u yimaado. labada qof oo isjecelna waxaa lagu yaqaana mar walbaba inay ka tashtaan oy wax isweydiiyaan oo mid walba midka kale wuxuu damacsan yahay usoo bandhigo ayaa marka waxaa weeyaan ayaa macnaha waxaa weeyaan fiican. ilaa waxyaalihii markaas ee aan hadda marka iska caadi oo nin walba sidiis tooska u qabanayo mooyaane. way waxaa kaloo nebigu ka sugnay calayhi salaam xadiis oo markaas bukhaari keyrka ay soo saareen oo macnahaas asna tilmaamaya ayaa ka sugan. waxaa kaloo kamid walaalayaal xuquuqdu gabadha ninkeeda uu kuleeyahay an taxfadahu fi cirdiha wa awlaadihi wa maalihi, inay ninka ilaaliso, inay haweeneyda gabadha ilaaliso cirdigeeda iyo sharafteeda inay ilaaliso, xumaantu inay iska ilaaliso bimacnaa gogol dhaafka, akhlaaq xumido, waxyaalahaas oo dhan inay iska waaridayso macnaha ilahayna uga cabsato. xuquuq uu ninka kuleeyahayna way ay ilaaliso. waxaa kaloo laga rabaa caruurtiisa iyo maalkiisana inay u ilaaliso. ilaahay subxaana wa tacala markuu ka hadlaya gabdhaha wan wanagsan wuxuu yihi fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatu lilghaybi bima xafida allah. saalixaadka wuxuu ilahay sheegay subxana qaanitaat inay yihiin. qaanitaadkaas macneed maxaa laga wadaa? in ay macnaha waxaa weeyaan ay adeecsan yihiin, raggooda ay adeecsan yihiin, rabbigoodna ay adeecsan yihiin subxaana wa tacaala. oy awaamirta raggooda qaadanayaan, xuquuqda raggooda ay gudanayaan, xaqa rabbina ay gudanayaan subxaana wa tacaala. xaqii macnaha waxa weye ninkana ay zawjkeedana ay gudanaysa. xuquuqdu marka inay gudato la rabo waxaa ka mid a inay maalkiisa ilaaliso, oy u aragta maalka iyadu inay leedahay, inay ilmihii ilaaliso maxaa yeele ayadaa dhashay, ninkani waa la dhalay. in maxaa la jirkeeda ay ilaaliso, xumaantii akhlaaq xumida waxaas oo dhan ay ka ilaaliso. waay xaafidaatu lianfusihina cinda ghaybati aswaajihina canhuna bay culiman ku fasiraya. raggooda markuu ka maqan yahay ama suuqa ha jire ama safarba ha jire inay macnaha ay is ilaaliso oo xumaanta iyo akhlaaq xumida ay iska ilaaliso, oo xibinteeda taranka ay zinada iyo akhlaaq xumida iyo waxaas oo dhan ay ka ilaaliso. xoolihiisa inay ilaaliso, xaquu ninka kuleeyahy inay gudato, xaqa rabbi uu kuleeyahy ay gudato. saasaa laga wadaa marka qaanitaatun xaafidaatun lilghaybi bima xafida allah. waxaa kaloo xadiis horena aan kusoo marnay in nabigu calayhi salaatu wasalaam la weydiye dumarka kuwa uga fiican. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa midda macnaha sifaadkeeda markuu sheegay waxaa ka mid ah inuu yidhi wataxfadahu fi nafsiha wa maalihi, ninka ayay maalkiisa ilaalisaa oy xifdisaa. waxaa kaloo ilaalisaa oy xifdisaa maxaa la yidhaahaa fi nafsiha, nafteedana way ilaalisaa. xumaantii akhlaaq xumido iyo gogol dhaafka waxaasoo dhan bay iska ilaalisaa. marka waa xaq oo ninka kugu leeyahay, marka waa inaad ilaaliso wey. gabadhii markaa nin kale u tillaabsato ama akhlaaq xumo kale ku tillaabsato, xaqii rabbi uu ku lahayna subxaana wa tacala way ku ciyaartay, xumaan bay ku dhacday, oo waa gabarh dambaawday oo qalad gashay oo xaaraam ku dhacday wey. xaqana xaqa dhanka kalena xaqii ninka uu ku lahayna way ku dhacday weeyaan, oo marka oo waa gabarh gudan waysay oo ku tumatay weeyaan. waxaa ka mid ah walaalayaal xuquuqdu ninka zawjka xaaskiisa ninka haweenaydiisa ku leeyahay waxaa ka mid ah an tashkura lahu inay u mahad celiso, walaa tajxadu fadlahu, fadligiisa iyo deeqda iyo wanaagaad u galay ma ayna diidaysa, inay inkirta maaha, inay wanaag kula dhaqantaa la rabaa. qowlan wa ficlan, af iyo adinba inay ugu mahad celiso, in macnaha dhaqankeedii nolosheeda o dhan ay noqoto mid mahad celin inay noqoto. nabigeena calayhi salatu salaam waxaa ka sugan inuu yidhi laa yanduru allahu ila imra'atin, ilaahay haweenay fiiran maayo laa tashkuru lizawjiha wa hiya laa tastagni canhu, ninkeeda aan u mahad celinaynin oo aanan ku shukrinaynin iyadoo islamarkaana aanan ka maarmin hadde, oo isaga hoostiisa ku nool, oo isaga mas-uuliyaddii macnaha u qaaday, oo marka waxaa weye ayadana hoos joogto, oo aan markaa banaan ka joogin, oo la nool nolosha la qaybsanaysa, islamarkaana wanaaggii iyo khayrkii iyo ixsaankii loo galay aan ka mahad celinaynin, taa ilahay il naxariis kuma fiirinay subxana wa tacaala. waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi naarta ayaan fiiri, waxaan arkay buu yidhi aktharu ahliha inuu yahay maxaa la yidhahaa annisaa, dumarkay u badan yihiin naarta dadkeeday. markaasay waxay dhaheen rasuulka ilahi lima, maxay ku dhacday? nebigu wuxuu yidhi alay slam yakfurna, way gaaloobaan, way kufriyaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. kufri markaas yakfurna billahi, ma ilahay bay ku kufriyaan. markaasuu nebigu wuxuu yidhi alay slam yakfurna alcashiira, ninkooda ayay ku kufriyaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka maxaa yeele kufriga waxaa la yidhaha asalkiisa luuqadaba nicmada ilaahay subxaana wa tacaala la qariyaa la yidhaha. saa daraaddeed beeralayda wixii la aas wixii la duuga ayaa la yidhaha, horta asalkiisa wixii la duuga ayaa la yidhaha oo meel lagu aaso. saa daraaddeed beeralayda ilahay wuxuu ku yahay subxana wa tacala ku magacaabay kufaar inay yihiin, yucjibu lkufaara. soo markin kufaarta bimacnaa waa kuwa dhulka wax ku aasaya wey, ee gaalo lagama wado haddo.
marka haddii adiguna nicmadii laguu galay iyo wanaaggii iyo ixsaankii iyo laguu galay aadna ilaahay ugu mahad celin wayso oo qofkii kuu galay aad u mahad celin wayso waxay ka dhigan tahay adigoo macnaha nicmadii qari oo aasay oo duugay bay ka dhigan tahay markaasuu nebigu wuxuu yidhaha yakfurna alcashiira ninkooda ayay ku kufriyaan oo nicmadiisa iyo wanaaggu u galay ayay duugaan oo qariyaan uma mahad celiyaan weliba waa sii wada nebigu wuxuu yidhi yakfurna alixsaana wanaagga ayay ku kufriyaan low axsanta ilaa ixdaahunna dahra midood haddii aad san dhan aad ixsaan iyo wanaag u samayso uma ra'ad minka shay-an mar un ay wax kaa aragto bini aadan baa tahay adigu macnaha waxa weye maqaldamo waa alla subxaana wa tacaala waxbaa kaa qaldami karo marka inta aad wanaajini waa ka badan iyo inta qaladka u dhacay haddii qaladku uu badnaan lahay maba laysla noolaateenba taa horta waa in la ogaado wey labada qof oo wada nool intay wax kharibayaan iyo intay wax macnaha hagaajinayaan waxa weye intay wax hagaagsanayaan unbaa badan taasaa suurtagelinaysa inay markay wada noolaadaan oo isku raagaan ilaa macnaha waxa weeyaan ay geeri u timaado qaybo badan waa sida loo badan yahay qaar badan inay muddo wada noolaan baa dhacaysa marka taa waxay ku tusinaysaa inta wax la hagaajinayo iyo inta wax la qaldayo inta wax la hagaajinayaa badan saas daraaddeed markaa ay wada noolaashada ayay ku hagaagahaysaa laakiin marmara wax qaldamayaan bil aadan baa leeyahay carab iyo ilkaa iskugu dhow baa la yidhahaa wax daris ah oo meel ku wada nool ayagana waa isqoomaan oo ilkaa marmar bay carabka qaniinaan marka hadday wax ay dhacaan oo wax yar gabadha aragto waxay leedahay maa ra'aytu minka khayran qatu weligayba khayr iyo wanaag kuguma arki wixii oo dhan waad dafiraysaa taana walaalayaal arrin wanaagsan maaha arrin wanaagsan maaha waxaa la rabaa waxyaalo badan oo hataa qaladaad oo dhacayo in lagu hilmaamo oo ay gabadha iskaga dulqaadato ninkana waa sidoo kaleeto waanu tegi doonaa insha allahu tacaala oo macnaha ay gabadhii macnaha ay ku hilmaanto wanaaggii loo samayn jiray wax badan oo hadda ay dareemaysa inay madaxa hoos fiiriso ayadoo wanaaggii hore iyo burwaaqadii hore iyo khayrkii faraha badnay ayadoo markaa eegayso laakiin haddii wax yar markay dhacaanba wixii horeba la hilmaamo arrintaas waxaa weeyaan nicmada ilaahay subxaana wa tacaala oo laga shukrin waayo weeyaan waxaa kaloo nabigeenana ka sugan alayhi salaam inuu yidhi man laa yashkuru innaasa laa yashkuru allah qofkaan dadka ku shukrinin oo qofkii wanaag u sameeya aan ugu mahad celinin ilahayna qofka kuma shukrinayo subxaana wa tacaala marka waa in aad mahad celinta afkaada isbarto wey waad mahadsan tahay khayr allah ku siiyo inaad tiraa wey markay wax si kaa halaabaanna khayrka wanaagga badan lagu soo samayn jiri ee aad kuwada soo nooladeen inaad ku hilmaanto ayaa la rabaa waay marka khayrkaas shukrinta walaalayaal keliya maaha ina afka keliya waa mahadsanta ka dhahdo horta gabdho badan kuma baraarugsano oo aad iyo aad bay ugu yar tahay weliba gabdhaha luuqada haddaan ku hadlayna ee soomaaliga ku hadlo aad iyo aad bay ugu yar tahay inay nimankooda u mahad celiyaan waxayba u arkayaan qaar badanoo ninka waa mahadsan tahay abow khayr allah ku siiyo ilahay khayr ha kuusoo macnaha kula kulmiyo ilahay cimrigaada ha raajiyo ilahay wanaag ha kula kulmiyo hadday dhahaan oo sidaa usoo dhoweeyaan waxayba u arkayaan inay addoonnimo iyo guumaysi iyo maxaa la yidhahaa qaladaad inay ku dhaceen bay isu arkayaan iyay isu arkayaan dad wanaagsan waa jiraan alxamdulilah oo hadda wax badan baa diintii la fahmay dad badan waa jiraan wanaagsan iyo kuwii horeba naftooda dad wanaagsan waa jireen laakiin intooda badan in la mahad celiyo ma badno mahad celinta marka waxaa la rabaa inay carabka kelix noqoto maaha mahad celinta lagaa rabo oo zawjkaad u mahad celinayso ood ku soo dhaweynayso carab kelix inay kaa noqoto maahe xibnahaada iyo jirkaada iyo muuqaalkaada iyo noloshaada inay ka muuqataa la rabaa inaad farax iyo wanaag inaad ku wada nooshiin inaad u muujisaa la rabaa in macnaha waxaa weeyaan nolosha aad la nooshahay aad u aragta in aad maasha allah dad badan ka noolal fiican tahay dad badan inaad macnaha ka wanaagsan tahay qofkii macnaha ugu wanaagsan in ilahay adig kugu soo aadi maxay adigu midka ilahay kugu soo aadi unbaa taqaanaa ku kale ma garanaysid marka jazaakum allahu khayran gabdhaha walaaladeen waxaan leenahay inay marka waxa wanaagga ka faa'iidaystaan oo aakhare iyo adduunba macnaha waxa weeyaan si ay macnaha u badbaadaan waxyaalaha qaladaadkana inay wanaagga la samaynaya mar walbaba ka badan in lagu hilmaamo ayaan insha allahu tacaala ayaan macnaha waxa ku dhiirigelinaynaa wajazaakum allahu khayran ilaahay subxana wa tacaala khayr iyo wanaag hana waafajiyo dembigeen iyo dembi waalidkeen allah dhaafay iyo dembiga culimadeenni iyo mashaayikhdeeni iyo inta diinna soo gaarsiisayba ilaahay subxana wa tacaala dembigooda ha dhaafo qof kastood wanaaggan soo gaara oo ka faa'iidana ilaahay subxaana wa tacaala qof kastood wanaaggan soo gaarana kii macnaha ku badbaado oo qaladaad macnaha laga yaabo ka dhici jir inuu macnaha uu kaga badbaado ilahay ha ka dhigo insha allahu tacaala kan sheegaayo iyo kan loo sheegaayo ilahay nagu wada anfaco camalkeennana ilahay dartiis iyo khaalis allah nooga dhigo wajazaakum allahu khayran kelimadeennii qaybteeda labaad galabta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa hada wabillahi towfiiq
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.